mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waa maalin aad u weyn oo qiimo weyn ku leh qarankeena maadaama aynu joogno xafladii xadhigga lagaga jarayay wejigii koowaad ee dhismaha ballaadhinta iyo casriyeynta dekedda berbera mashruucan oo ay maalgelisay shirkadda DP World dhismaheedana ay fulisay shirkadda Shafa Al Nahda mudane madaxweyne mashruucani wuxuu noqonayaa mashruucii ugu ballaadhnaa ee dalkeena laga fuliyo muddadii aynu la soo noqonay xornimada kala soo noqonay dowladdii dhexe ee Soomaaliya mudane madaxweyne haddii aan soo koobo waxyaabaha uu ka kooban yahay mashruucani waxa weeye container terminal 400 mitir ah kiiga barxadda weyn ee dhammaanteed la dhisay 200,000 mitir square ayay ka kooban tahay barxadda containerada la dhigaa waxay iyaduna qaadaysaa 500,000 container sanadkii daraafka jooga ama daraafka ay maraakiibtu ku soo xidhaan waxa la gaarsiiyay heerkii caalamka dekedaha waaweyn ee internationalka waa 17 mitir halka teenii hore ay ahaan jirtay halka u dheeray 11 mitir iyo 9 waxa la keenay barxadda weyn ee containerada iyada lafteeda lagu kala guro 8 wiish oo ah kuwa containerada raseeya kala gura nooca loo yaqaan RTGS waxa kaloo lagu soo kordhiyay dekedan container terminalka ah 3 wiish oo waaweyn oo kuwa maraakiibta ka roga containerada oo markab kasto xaddigiisu weyn yahay ka rogi karaya insha Allah biidhnillaahi kariim waa nooca loo yaqaan STS Gantry Crane waxa laga fuliyay dhismayaal aad u fara badan oo xafiisyo aad u fara badan oo ay u soo guuri doonaan dhammaan xafiisyada ka shaqeeya dekedda sidii meel qura la isugu keeni lahaa oo customerkuna shaqaduna u fududaan lahayd mudane madaxweyne annagoo ka duulayna muhiimadda ay qaranka ugu jirto dekedda berberi isla markaana la jaan qaadaysa horumarka iyo casriyeynta ay fulisay dekedda DP World ku samaysay dekedda berbera waxaanu keennay taagag casri ah 2 taag oo casri ah oo mid walba xajmigiisu ama hoos baawarkiisu yahay 3,000 hoos baawar waxa kale oo ku soo kordhinay pilot boat cusub oo iyadana ay raacaan baylodada soo xidhaya maraakiibta dhammaan agabka waxaa soo iibiyey jamhuuriyadda Somaliland oo hanti aad u fara badan gelisay xukuumadda Somaliland ee uu garwadeen ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland si ay ula jaan qaado casriyeynta iyo ballaadhinta laga fulinayo shirkadda DP World fulinayso shirkaddan DP World iyo dowladda jamhuuriyadda Somaliland waxay wada yeesheen shirkad la yiraahdo DP World Berbera terminalkan iyo cidda maalgelisay waxay ka turjumaysaa shirkadda weyn ee labada Somaliland iyo ay DP World ku shiraakoobeen oo la yiraahdo Berbera DP World Berbera waxa hadda ka howlgala dekedda berbera dhinaca marinaysa 3 taag 2 taag waa kuwa hore aan soo sheegay soo iibinay iyo 1 taag hore oo iyagana aan cusboonaysiinay dekedaha internationalka minimum waxa soo xidha 2 taag si markaa la isla jaan qaado waxaan ku soo kordhinay 2 taag ee boat markaa dekedda berbera waxa ka howlgala 3 taag marka la isku daro mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn mashruucan ballaadhinta iyo casriyeynta dekedda berbera wuxuu suurto gelin doonaa inay ku soo xidhaan maraakiibta ugu waaweyn ee ku xidha dekedaha caalamiga ah laga bilaabo maanta
waxaan rajayn doonaa inay wax badan ka tari doonaan muddadii ay soo socon jireen konteenaradu oo berigii hore muddo dheer qaadan jirtay ilaa 34 cisho 35 cisho mararka qaar 40 cisho laakiin waxaan rajaynaynaa laga bilaabo imika in maraakiibta waaweyn ee ka gooshda caalamka sida China iyo meelo ka fogba inay toos ugu soo xidhan doonaan ganacsatadana ay ka caawin doonto muddadii dheereed ee ay sugayeen inaan dib loo sugi doonin oo muddo gaaban 19 cisho ay ku iman doonaan insha Allah waxa kale wax ka tari doontaa maadaama maraakiibta feederiski ay noogu soo qaadi jireen dekedaha mandaqada sida Dubai Oman Salaala iyo meelo la mid ah maanta waxay noo hirgelisay in maraakiibta waaweyn toos u yimaadaan dekeda Berbera taasoo wax badan ka dhimi doonta ganacsatada Somaliland xagga nooliga mudane madaxweyne maanta dekedu waxay u diyaarsan tahay inay qaabisho ama rasiif karayso maraakiibta ugu waaweyn dunida insha Allah billahi ta'ala waxaan jecel lahay marka ay dhameystiranto dekedu in iyaduna wadadina ay iyaduna dhameystiranto waayo deked cusub oo la dhisay oo aan wada lahayn suuragal noqon mayso wadadana way noo dhamaanaysaa insha Allah billahi kariim waxaan aad u soo dhaweynayaa madaxweyne madaxda ka fadhida dawladda Itoobiya oo iyaguna muujinaya commitment-ka iyo siday ugu heelan yihiin inay isticmaalaan dekedeena dekedan waxa soo martay caqabado badan laakiin muddadii loogu talagalay way ku dhamaatay inkastoo 6 bilood uu dib noo dhigay coronavirus-kii oo dunida oo dhan ka dhacay laakiin muddadii loogu talagalay wuu ku qabsoomay haddana insha Allah waxa lagu darayaa 600 mitir oo iyaduna kii ah taa macnaheedu waxa weeye sanadkii waxa handal gareyn kartaa dekedu 1 milyan oo container ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa shirkadda DP World iyo shirkadda Shafaa Nahda waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland runtii dadaalka badan iyo juhdiga badan galiyay sidii ay mashaariic fara badan u soo hirgeli lahaayeen waxaan leeyahay madaxweyne runtii waan kaaga mahad celinayaa waliba aanu si gaar ah ayaan kaaga mahad celinayaa maadaama mashruucii ugu weynaa dalka aad garwadana iga dhigtay fayskiisii horena uu soo dhamaaday maanta waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaa mahadsantiin wabillahi tawfiiq